nidaamka adduunka ee caalamiga ah ayaa u sawiran inuu burbur ku socdo laga soo bilaabo subaxnimadii Khamiistii 24 Febraayo 2022 aamintii uu Putin baaruudda ku asqeeyay Kiev waxa bilowday in dalalku ka gudbaan xeerarkii la ixtiraami jiray diblomaasiyaddii xeerintuna way dhammaatay wixii ka dhacay Gaza, Tehran, Beirut iyo Dooxa isku daygaabi ee 2022 isku darkoodu waxayna siinayaan sida dunidu ay isku dhalan rogtay hayndaabkana looga xiro tiraaray Soomaalidu waa bulsho kala daadsan kuna nool habdhaqankii reer guraaga ma muuqato kuwa isku khasban habka go'aanada loo gaaro cadiifada sarreysa wixii lagu heshiiyo oo aan dhab loo fuli hagal kasta oo dhaqaale laga eegay waxa ay ka dhigtay beelaha maanta marinadeeda lagu gorgortamayo waana lagu dul dagaalamayaa sida cad xaalad halis oo ishardiya ayaa ka soo wajahan marinada muhiimka ee baddaas dhawaaqii Somaliland ay ku heshay aqoonsiga Israa'iil looma qaadan karo calaamad gabagabaynaysa doonista Hargeysa waxaase ku lamaan saameyn abadi oo ay ku yeelanaysa deganaanshaha cara edeg ee Soomaaliya oo dhan dalalka gobolka gaar ahaan kuwa gacanka ku yaala qaarkood si degdeg ah ula saftaan dhinaca dowladda Soomaaliya waxa lagu fasiray ogaanshahooda halka dhabta ah ee arrintan ay taabanayso dhimashada Masar iyo Sacuudiga boqortooyada Sacuudi Carabiya Masar, Turkiga iyo Djibouti ayaa noqday looga koobaad ee si cad u qaata go'aana inay taageersan yihiin madax bannaanida dad iyo dhuleed ee Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay si cad uga hor yimaadeen dhawaaqa Tel Aviv ay ku sheegtay inay ku aqoonsatay Somaliland looma fasiranayo dad badan qabaan in dalalkan ay Soomaaliya jacayl u hayaan ha yeeshee calaqadka iyo saameyntooda gobolka ayay tani ku tahay dharbaaxa halis badan oo ku dhacday Israa'iil waa awood ballaaran oo degan mandiqada bariga dhexe wadamada ay dhexda ugu jirto ma jecla Mareykanka ayay u tahay saaxiibka ugu weyn ee dunida uu ku leeyahay xoog iyo xeelada aqalka cad ayayna ku daaqdaa dagaallo soo waarida ayaa uga furan laga bilaabo Gaza ilaa buuraleyda Golan Highway ay doonayso inay xoog ku qaadato Netanyahu iyo kooxdiisu waxa ay qaadaan weerar aysan diblomaasiyadda iyo madax bannaanida midna celin laakiin looga jawaabo una cambaareen kii ugu dambeeyay waxa uu ahaa weerarkii qalbiga Dooxa ay ku beegsadeen madaxda Xamaas kaasoo dunida islaamku u gudubtay cambaareen iyo shir maalinle ah qatarna waxay ku sameeytay inay Trump la seexatay heshiis amni qaran oo difaaca falanqeeyaal badan waxay isku raacsan yihiin in Sacuudiga iyo Masar ay hadda wajahayaan halis mustaqbali ah sababta ay doonayaan in si degdeg ah looga adkaado damaca Israa'iil waan inay diidan yihiin saldhigyo militari ay Israa'iil ku yeelato baddaas gaar ahaan aaminta laga hadlaya gaarka Berbera tan waxay u arkaan dhimashadooda juqraafiyadeed waana tan riixaysa in dagaalka ay kordhiyaan baddaas maxay Israa'iil muhiim ugu aragtaa Oktoobar 2023 subaxnimadii uu bilowday duulaankii Gaza Xuutiga ayaa dhankooda qaaday howlgal dhammaystiran oo maraakiibta reer galbeedka ee marinka Baabalmandab ku gooshaya si cad ugu dhawaaqeen inay joojiyaan oo xireen qabateen 2 sano iyo kalkoos qaatay ayaa ku gabagabowday hindisihii nabadda ee Trump oo madaafiicda iyo dhawaaqa baaruudda looga joojiyay Gaza isku xiranka yaalla Falastiin ilaa badda cas ayaa kuwa xiriirsan inkastoo Israa'iil aagan u aragta marina xasaasi ay tahay inay gacanta ku dhigto waxaa garab socda hardan kale oo ay Sacuudiga, Masar ilaa Turkiga u arkaan mid lagu gabagabeynayo laguna gaaminayo saameyntooda goboliga 16% ganacsiga adduunka ayaa marinka la isku haysto Somaliland ayaana kaabiga ku haysa Berbera waxa ay tahay furaha loolanka cid kasta oo dhulka gacanta ku haysa ayaa leh furaha kama dambaysta taas waxaa lagu fasiray in sababteeda ay Somaliland ku heshay aqoonsiga ay dhinaca Israa'iil ka qaadatay qiimaha Tel Aviv u martayna tan waa la xaqiijiyaa Mareykanku halkan Berbera waxa uu ku leeyahay saldhig militari oo toddobaadyadii ugu dambeeyay ay dhaqaaqyo ciidan ka socdaan yoolkuna waa sidii loogala socon lahaa marinka Baabalmandab madaxweyne Xasan Sheekh ayaa hore Donald Trump ugu hadiyeeyay imaanshihiisii xafiiska garoomada iyo dekedaha kulaalaya badda cas ee Boosaaso iyo Berbera laakiin Somaliland ayaa diiday waxayna ku dooday in iyadu dhulkeeda u madax bannaan tahay Israa'iil war siyaasadeed looma qaadan karo arrintani waxay ku saabsan tahay tallaabooyin istiraatiiji ah dana abadiya iyo kuwa jiritaanka taabanaya waxna ka bedelaya xaqiiqada juqraafiyeed ee dhulka waana isbedel aan naxariis lahayn Somaliland waxay ku dheersan tahay xeebta dheer oo si toosasheeda uga eegaysa gacanka cadmeed waxay si dhab u maamushaa dhinaca Afrika ee ka soo horjeeda dalka Yemen waxay dhacdaa mid ka mid ah marinbiyoodyada ugu khatarta badan ee caalamka waana Baabalmandab oo ah jid uu ka gudbo qayb muhiim oo ka mid ah ganacsiga adduunka waa marin isku xidha badweynta Hindiya badda cas kadibna badda Mediterranean-ka iyadoo la sii marayo kanaalka Suez
inkastoo uu ku yimaado deegaanada marinka fooda ku haya ama dhacaya gobolka wuxuu si toos ah u macnaynaya isbeddelka lagu samaynayo qawaaniinta xakamaynta iyo maritaanka gaadiidka badda cas. taasi waxay albaab u furaysaa joogitaanka ciidan iyo sirdoon joogta oo ka imaanaya quwadaha shisheeye kuwaasoo si dadban iyo si furanba ugu dhow marinada tamarta adduunka. sidoo kale waxay ka dhigan tahay in la abbaari karo cadaadisna la saaraya maraakiibta ka timaada aasiya una sii jeeda yurub lana kordhiya kharashaadka caymiska iyo gaadiidka badda taasoo saamayn abadiya ku yeelan doonta dhaqaalaha dalalka waaweyn laga bilaabo bariga eshiya ilaa midowda yuruba. khatar aan caadi ahayna aamintii somalilan iyo israa'iil ku dhawaaqeen inay aqoonsi isdhaafsadeen turkiga, masar iyo sacuudiga ayaa durba isku raacay inay ku dhawaaqaan arrintan inaan loo arki karin heshiis kooban oo ay tahay khatar amni. waa dhab oo arrinta ugu badan ayaa ahay khatarta in badaha israajiga ay si toosa ugu beegan tahay xeebaha Yemen, gaar ahaana magaalada Cadan oo ah deegaan horeba ugu jiray isdiidooyin iyo dagaalo furan. taasi waxay baabul mandab ka dhigi kartaa inuu ka gudbo inuu noqdo marin ganacsi oo keliya, iskuna beddelo aag colaadeed iyo warqad cadaadis istaraatiiji ah oo gacanta u gasha cidda maamusha labada dhinac ama hal dhinac oo keliya. ugu dambayn, dhacdo kasta oo laga hadlay keliya kuma koobna manaha aqoonsi loo sameeyo dal cusub oo ku yaala gees ka mida qariiradda. waa dib u habayn aamusnaan ah oo dagaal furan oo ku socda amniga baddaas, khatar dadban oo ku wajahan kanaalka Suez, iyo fariin cad oo muujinaysa in khilaafka socdaa uusan noqon doonin mid dhul ku eg oo keliya, balse uu taaman doono mid badeed, dhaqaale iyo xitaa jiritaan. waana tan dalalka waaweyn ee hardamaya ay durba dareensan yihiin.